Audio Jungle. Audio Jungle. Waa ku faraxsanahay runtii kuma jirin abwaanadii Kayse iyo Umar iyo Naciima oo ahaa dadkii programka runtii qabanqaabadiisa lahaa aniga saaxiibkii Xamse Daayir Xamar baanu ka nimid toddobaadkii dhaweyd Hargeysa aanu muddo joognay wajaalaanu nimid maalin dhexdaasa dabeetana si malaa ku talagali lahaaya ayaanu xalay mooye habeen hore jigjigawnay farxad bay runtii laakiin noo tahay inaanu kala soo qayb galno oo dhageysano oo kala qayb marka la yiraahdo isbedel anu reer daroor baanahay geelaygu daroor buu joogaa waxaan doonayaa si aynu u ogaano halkaynu u socono waa inaynu calaamadin karna halkaynu ka nimi markaynu calaamadino ayaa waxaynu ogaan karnaa halkaynu tagaynaa gabay gurmadkii midnimada la yiraahdo baan akhriyi doonaa anigoo waqtiguna inuu kooban yahay oo aad idinkuna waqti badan horteen 2016 maraan Addis Ababa University ka soo qalin jabiyay baan Hargeysa tagay aabahay baan israacnay daroor baan tagay daroor aabahay wuxuu ka mid yahay odayaasha ahlu sharafka ay kontonkii sano ugu dambeeyay deegaanka joogay degana geel badan ku dhaqday baabuur badan ku dhaqday caruur badan ku dhalay degan daroor markaan magaalada gudaheeda ma tagina tuulayaasha u dhow baan tagay nin ka mid ah dadkaan u ehelkanahay odayaashii waaweynaa ee aabahay waliba daahaan ka weyn ayaa waxaan xusuustaa caruurnimadii markaan meelsha ka tagay isagoo aabahay ilaaliyo oo ilmaadeernimo ku ilaaliyo oo gaariga biyo laga siiyo xoolaha wax laga siiyo la dhowro la ilaaliyo tuuladii yareed aan tagay markaa 10 askari oo wixii maleeshiyaadka ay ku daafadahay meesha joogay kamid ayaa 10 ka meesha jooga mid uu dhalay baa haysta odaygii ayaa aabahay ilmaadeerka labaad haay meeshii markaan tagay ayaa aabahay wuxuu sameeyaa in hebel buu raadiyaa kiina hebel meeyo maalin kasta qaad buu siiyaa aabahay waa 80 jir aabahay madaxa 30 sano ugu dambeeyay caaqilaha dadku garanayaan ehlu sharaf ninkaas uu raadiyaa qaad iyo wax buu siiyaa 22 markaan joogay maalintii 23 baan anagoo gurigeygii ka tagno si yar lugayna naani aabahay ayaa ku rtaab waxaan ku weydiiyay deeyma ka ilaa ilmi hebel waa weynaadeen oo odaygina waaba iska rag laakiin rag fara badan baa joogo kan hebel leeyahay meesha bay isaga haysta maxaad qaadka u siisaa wuxuu yiri waxaan isleeyahay yaano inaan ka yar ka iibsan waxaan isleeyahay yaano inaan ka yar maxay ka iibsan ilmaadeer saddexaad baanu nahay maalintii waan ku misaas ahaa oo mijintan qaadka anigu mijin qaadaan la qiimahay macnaha markaa hadduu caqaar qaado waayo anigu caqaar qaada igu bedelanaya ilmaadeer saddexaadna waanu nahay mar raacin maalintii tuuli ma tagin inaan walaalno Seynab leeyahay magaalada degan ma laado kuri gaariga tagay ugu horeeyay ii soo sheegay gaariga baa gurigeyga ka soo maray sidii baan kaga dibna ugu noqon wixii sida ahaayay markaa dhacay inaynu akhrisan Hargeysa animi muddaan Hargeysa joogay waan ka tagay Xamar baan tagay maalmaan joogay waan ka tagay Kismaayo aan tagay Gaftid Khaliif baan Kismaayo isku aragnay Garow waan ku soo noqday Garow habeenkaan u hoyday baan inagu halkee degtay saan ku waxaan deganay hotel Hebel gaarigu ii soo diro gurigiisa ii geeyay sababtu gurigiisa ii geeyina habeenka ay ma sheegin bari dambu ii sheegay oo ahayd ma ku nabadgeli doona mise kuma nabadgeli doona wixii sida ahaayna soo maray baan doonayaa markaa inaynu akhrino si aynaan waynu iska maxabbo badanahay oo muxabbadeena iska badan halkaynu soconaanay u lumin haddaynu waxa markaa si fiican u fahmo ayaa waxaynu fahmi karnaa war halkaynu tagaynaa haddii laakiin ay iska muraaqootaan oo cusbur iyo cillaan soo marsataan tii shalay dhacday berrina way dhacaysaa gurmadkii midnimadu markaa safarkayga soo warwareega wixii aan soo arkay baan rabaa inaan sawiro sawirka markaa qaadataan waxa ka dhex fahmi doontaan halkaynu tagayn nin khaliif markaa la yiraahdo khaliif faaraxayir waa nin abwaana ahlul sharaf dadka la yaqaan ayaan doonayaa inaan ku warniyo anigu waxaasaan Soomaalida dhexdeedii ku arkay waa 2017 maalintii uu dhamaanay
wuxuu yidhi dhaweydba geeraaradii hoos umaan gelin ee guwaliba rag buu leeyihiin geesi hawlkar ah garashaduna waa shay ilaah uun ka geliyaa in kastoo isku faadhiya guurti noqon waaye khaliif oo abwaan loo gartay iyo geed la baatayo salaaniga gudoon waa mid aad gaar u leedahay adduunyadani waa galab carro waana shay garahe tusaalooyin gaagaaban baan soo gudbinayaa muxuu calafku kala geeyay laba dunida guud jooga muxuu laba geeyaan haa waqtigu geed ku kala ooday laba guur isku ogaa muxuu waaye kala geeyay gocoriya nin leedahay muxuu libin ku geeraaray magaan iyo nimaan geeyay maxaa gaari loo meeshay iyaduna gadeedii maxay gogasha haaraantay gasiinka iyo manfaaciga maxay gooni uga baydhay maxay gelin dhaxaadkii ilmadu hoos u gobolayso gobca silanta waa la arki jiray gooriya ayaana maxaa geesi waayuhu la hadhay nacas ku geeraaray muxuu faraha guudkood la dhamo goonyo ugu faanay hanad iyo nin guurtiya muxuu fuluhu goolgoolay laba aan gudboonaan karayn golo markay joogto gadgadoonka waayuhu muxuu goob isugu keenay laba aan gudboonaan karayn war midaydaan ragganimo ku gudboonay bariga hore waxaa la odhan jiray Soomaalidu raggu shan buu ahaa waxaa la odhan jiray nin wuu talin jiray ninna wuu la tashan jiray nin wuu taliyaa isagaa taliyo talu keena ninna wuu la tashada waa Kayse iyo Cumar iyo Xamse inta lamida waxa leeyahay war maxaynu yeelaa ninka saddexaadna wuu ku tashan jiray waxa la odhan jiray hadaynu sidaa Kayse ugu aamino Xamsana wuu inagu raacaya waa ina la talo waa nin taliya iyo nin la tashado iyo nin ku tashado ninka afraadna waxa la odhan jiray waa loo taliya waxa la yiraahdaa wariyo waxaasaanu soo go'aaminay sidaas la yeelay reerku bari waa guuraya waa afar nin ka shanaadna waxa la yiraahdaa waa laga tashan jiray waxa la odhan jiray geedka quraanshada lagu xidhi jiray markuu raggu tashanay waayo isagoo colaad iyo nabad midna waxba kuma laha shantii nin sidaa halkan ay wada fadhiyaan laba aan gudboonaan karayn gole markay joogto gadgadoonka waayo wuxuu goob isugu keenay kii talin jiray iyo kii laga tashan jiray baa maanta makarafoonka wada haysto wada raba inay wax inoo sheegaan mararka qaarkood kii laga tashan jiray baa taliya laba aan gudboonaan karayn gole markay joogto gadgadoonka waayuhu wuxuu goob isugu keenay nina gorofka xoorka lama sida guyiyo jiilaale madaxweyne guuniyo kuwii geesinaba sheegtay guyaal iyo guyaal badan kuwii garafka taagayay wuxuu mirar gudahood waqtigu goob cidlaa joojay marka waxa laga yaabaa inaan ka hadlayay dawladihii Carbeed hadda laakiin tusaale wanaagsan baynu haysanaa Soomaa hadda tusaale wanaagsan baynu haysanaa guyaal badan ragii ganafka taagayay muxuu mirir gudahood waqtigu goob cidlaa joojay nimaan talada goyn jirin maxaa galabta loo dhiibay maxaa galabta loo dhiibay xilkiisii mas'uul gabay maxaa guurti lagu sheegay gubaystuhu inuu dhalay maxaa geesi ugu yeedhay gobol maxaa la isku diray geeshka wada yaalay guud ahaan dalkaygii muxuu cadawgu googoosto guud ahaan dalkaygii nin cumaamad iska sitoon guurtina ahayn odayna ahayn baa jira had gaaduhu muxuu beelanagi gaadh isugu meeshay gudoodiga mirtii dhexe maxaa la isu gacan qaaday gulufkiyo colaaduhu maxay gumaradii xaaqday marwo gabanadeedii muxuu gumucu aafeeyay maxaa geesigay dahatay iyo geedii laga laayay maxaa xaajigeedii dhagaha gowrac lagu gooyay candha guran calool aan wax gelin guri abaarooba goblan iyo halaag iyo maxaa arami loo geystay u fiirsaad waa candha guran calool aan wax gelin guri abaarooba waa gabadh caruurteedii la laayay oo odaygii laga dilay oo xoolay laga qaaday hadii nin guursato ma dhasho candha guran calool aan wax gelin way gabowdo dhali mayso caruur ma haysato waxay dukaan yar magaalo kaga furatana ma haysato candha guran calool aan wax gelin guri abaarooba goblan iyo halaag iyo maxaa arami loo geystay gugooshikii taagan yahay bilaha loo gaadho gooluhu muxuu naga xilxidhay gacamadii roobka gufaaciye hilaaciye maxaa guuxba laga waayay guunyadu maxay daadato gobi ku caydho gobonimada ruux jecel maxaa cadawga loo geeyay xabsiyada maxaa lagu guro guuta lagu meeshay hanad lagu gabood falay maxaa dunida guud jooga intii nan qaar la soo wada xilxidhay soo kuma jiraan hanad lagu gabood falay maxaa dunida guud jooga gafnima aan aqoon jirin maxaa hoota lala gaaday ruuxu gargaar biday waa basaasnimadii oo gabayaya ninaad ku tir war saaxiib baynu waxa aynu isku ogaano dabeetana fagaarayaasha kaaga warramay way gafnima aan aqoon jirin maxaa hoota lala gaaday ruuxu gargaar biday inuu gacan ka eegayay saaxiib u gaariyo inuu gacal xigaal mooday sirihiisa gaarka muxuu gunugu faalayay isaguna gadiisii muxuu nabarka gaarsiiyay kaftan xaaja aan gelin muxuu geedka kaga baanay maxaa ruux ilaahay galaday hadima loo geystay garbilaasha iimaan guracan garbilaasha iimaan guracan garasho ii mowday niman diinta shaadharu gashada boosas lagu gaadho misna garasho ii sheegta aan cidi ku gaadhaynin waxay gaaray uma soo degiye aayad gooni ah kadib nabigu sheegay waqtigu galabta joogay hadduu nin intuu shaar ku soo xidho
quraan dambo soo degay miyuu jira quraan dambo soo degay ma jira diintuna waa inteed hadduu markaa kugu idhaahdo masaajidka ha ku tukanina kaa ku tuko waxay gaari uma soo degay aayad gooni ah kadib nabigu sheego waqtigu galabta joogaaye anoon ararta sii guda fogeyn way gundheer tahay taariikha wada guuna baan soo gudbinayaa ay guyaal tagay xusuustood haddaan gudub u faaleeyo baarliin heshiiskii la galay aramiduu geystay geeyigeena waa tii la dhacay gabi ahaantii gadi Sheekh Bashiir iyo raggii cadowgu googooyay danahooda gaarka marnaba uma guclaynayna waxay goobayeen kufrigu gumucu leefsiyay waxa loo gunaanaday xornimo inaynu gaadhnay wax kale uma dhiman guuraha habeenimo waxaan godad u jeednaaba inkastoon la wada gaadhin oo goday u heesaayay inkastoon la wada gaadhin ongoday u heesayo gobonimada waa tii la helay geedigii hore ee guusha la yaab kale rag baa dhaliyay goolkaas ee galabtu suldaankii xornimo dhab ugu geeraaray hargeysa xamar baa dabcan sheegay waa maxamed cabdullaahi suldaan timaad galabtu suldaankii xornimo dhab ugu geeraaray suugaan wixii laga guntaan cidina gaadhayna gacaltooyo waa tii la helay labada geesoode waa labadan hadda kala yaacayo intaan idin kaba laydin soo hadal qaadin haddaad ku tiraado war hadda calankani xidigtu waxay leedahay 5 gees uu kula yaabaya idinku kuma jirtaan weeyaa anigu kuma jiraba gacaltooyo waa tii la helay labada geesoode go'aankeenu waa tuu ahaa guusha nololeed rag gumaysi habay baa bulshadan hoos u gowracay halkay wax ka qalloocdeen hadduu halka kaysa sheegay gacaltooyo waa tii la helay labada geesoode go'aankeenu waa tuu ahaa guusha nololeed rag gumaysi habay baa bulshadan hoos u gowracay gumac iyo rasaas buu la dhacay gumaradeenii hooyooyinkii wada gobolmay gabanadii leeday waa taariikh wada guun oo gaar u leenahay inkastoo guhaadiya afxumo goolka markii lagu helay macnaha waxa weeye markii hogaankii ka xumaaday waxaan rabaa haybo taasisinayno abuurna war maxaa qaldan goolka markii dawladnimadii markaa dadkii loo dhiibay ay duuflaala noqdeen goolka markii lagu helay gaabismu imana shisheeyo wuxuu soo gangibay gabanadiisii dabadhilifkii iyo tuugii iyo wixii oo dhanba maxaan ka shantii nin sinaaba kii laga tashan jiray baa siyaasadda la soo gali goolka markii lagu helay gaabismu imana shisheeyo wuxuu soo gangibay gabanadiisii iyo maandeeq ninkii gowracday gini ninkii siistay reeruhu markay kala gurteen geesi lagu sheegay reer walba tuugoodii dawladnimada dumiyay baa hadda halgamaayo mujaahid iyo balaayiye baasu ah maandeeq ninkii gowracay mujaahidnimada maxaan ku iraahdaa astaamaha lagu bixiyay iyo halgamaanimada waxa kamid ah inaad gowrici maandeeqaad ka qayb qaadatay taasa lagu bixiya maandeeqninkii gowriciye gini ninkii siistay reeruhu markay kala gurteen geesi lagu sheegay inkastoo guhaadiya afxumo arami loo geysto inkastoo xumaan aan u geyin guudka laga saaro hadda isleedii war ninkan muu aamuso malaha muu hoos yara hadla baa laga yaabaa qaar inaan leedin soo maaha inkastoo guhaadiya afxumo arami loo geysto inkastoo xumaan aan u geyin guudka laga saaro xaqiiqadu ninkii ay gubtaa aamus garan waaye xaqiiqadu ninkii ay gubtaa aamus garan waaye kuwan xamar isku fadhiya calankii guud jooga waaniga idinku lahaa maxaan ku iraahdaa shantan xidigood waaniga hadda ka hadlay kuwan xamar isku fadhiya calankii guud jooga nimanka gumaysigu sitee guudka laga haysto foosada kuwa lagu gambiyay geedna lagu ootay amisom gargaar iyo kuwa gooyo uga baahday raga faraha guudkood la dhama galinba loo saaro guud ahaan dalkaygii waxa maanta kala geeyay waa siyaasi gaaladu dhasho lagu gabraartay gudaha Hargeysa iyo barbara tan iyo gaaroodi garowe iyo diyakooniyo hangama ay diiday gede iyo ilaa labada webi jawhar gudaheeda goob weyn anaa soo arkiyo goonyihii xamare geedkaad istaagtaba dalkii guul ina siiyay gabra iyo warkiisii ku baax goboladeenii geedkaad istaagtaba dalkii guul ina siiyay Jabuutina waxa lagu gambiyay gorofkii cayreeda gobolada Wajeer waa horu gaal ku saanyadeeyay gambisiya awaariyo guracantan iyo gaashaamo goday iyo wardheer buu tigray gaarka ka hayay Soomaalidu geeyiga ay degtiyo goboladeedo dhan gumaystaha madow baa xukuma goosankii haray gumaystaha madow anu mid cad sheegi maayo gumaystaha madow baa xukuma goosankii haray ee geestan jalaacaba qalbigu wuu godmanayaa in gaboobay waa yaaban iyo kii garaad leh iyo herar maalintay ka godeen weyday garabkaaga hawaashay galbeed iyo markaad baalay garan weyday markii aad iswada gowracday garashay mooday hawaashay galbeed iyo markaad gaali garan weyday markii aad iswada gowracday garashay mooday maantana garoowiye burca la isu soo galay jigjiga kama hadlayaan maantana garoowiye burco xaafaday ku leeyihiin burcaan ku arkay kaysa marqaati buu ka ahay meel boor lagu qoro af oroma ku qoray oo maxay burca ka soo doonay ma aha markaa meelaha laga hadlayaa herar iyo jigjiga iyo ma aha
maantana garoowiya burcaa la isu soo galay geedigu halkuu sii socdaad yaabu go'aysaayo gobonimo ha joogta iyo xornimo gobol la sheegtaane soo meedaan arag wax saas ulu tafaariiqmay gobonimo ha joogto iyo xornimo gobol la sheegtaane xaqiiqadu ninkii ay gubtaa aamus garan waaye gefka iyo xumaha soo socdaa taa ka gudaweyn inta aan soo sheegay waxa ka sii fool xun oo ka sii qarmo waxa soo socda gefka iyo xumaha soo socdaa taa ka gudaweyna gaaliya islaamkaba hadii la isu wada geeyo waa arami guud oo khalqigu ii gudboon yahay dhaaxay filkood gaasireen ciil la geliyeen xaqumowda Soomaalida la isla soo garay xaqumowda Soomaalida la isla soo garay ujeedada si loo gaaro oo ruuxna uga geegin waa taabadeenii la gaday gabi ahaanteeda gibirkana rag baa loo shubaa maalmo gudahooda gibirkana berbera waa la iibiyay boosaas waa la iibiyay xamar waa la iibiyay kismaayo waa la iibiyay cidina waxba nagama weydiin annaga waxa weeyaan inay gumoobeen si ay u dhadhamiyaan aynu gibir ka qaadno annaga markaa gibirna laga qaadi jiray idinku xagee joogtaan marka ujeedada si loo gaaro oo ruuxna uga geegin waa taabadeenii la gaday gabi ahaanteeda gibirkana rag baa loo shubaa maalmo gudahooda gabanada wayaanuhu korsaday waad ka garataay waa kuwii annaga noo talinaya idinka kuwiinu markaa waa fi dars fil asfil min an-nar soo maaha macnaha waxaan rabaa inaan idin dhadhansiiyo war annaga kuwiina haystay sideebay u ekaayeen si ay idinkuna isu qiimaystaan idinka markaa cidiba idinma haysatade gabanada wayaanuhu korsaday waad ka garan waxaan rabaa calaamadaha ay leeyihiin tuugtii imanka ilaahay inaga kaxeeyay qaarna ay sii joogo way tagayaan iyaguna calaamadaha ay lahaayeen gabanada wayaanuhu korsaday waad ka garataaye safaradan adiis loo galay ceebta laga goosto ujeedooyin wada gaar ah loo goleeyahay waa inay amiirkooda guud raali geliyaane waa inay canjeerada gurtaan labada gooroode gacan qaadka waa inay indhaha hoosta geliyaane waa inay hadiye gaar ah iyo shilima geeyaane xashka waa inay soo gutaan gaalku soo rogay mid baa soo carray garow wax yar looga dhigay Addis Ababa ku soo xashaya mid baa Hargeysa uu soo xashaya Kismaayo laga soo xashaya xashka waa inuu soo gutaa gaalku soo rogay haya gaasha mooye wax kale waa la gees maray awaamir haya gaashe eeshe gaashe eeshe gaashe badana ma saganaalow nothing else haya gaasha mooye wax kale waa la gees maray haduu garasho leeyahay waxa uu ka guban laay war ninkii waxaas ku dhacay hadduu markuu noo soo noqdo lagu oran dusuud baan soo xalay canjeeraan wax ka soo cunay shilimaad baan geeyay waan soo xash waxbay noqon lahayd markuu soo dega muxuu yiraahdaa hadduu garasho leeyahay waxa uu ka guban laayay garoomada markuu soo dego gudub u soo laabto wiil garasho dheer iyo suu gob ugu eekaado galad beenah iyo waa inuu goola tiriyay waxaan ka wada hadalay isdhexgalka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo dawladnimada iyo isu furanka halkan baa laga yar ka soo qaad waa in waxa la garoomada markuu soo dego gudub u soo laabto wiil garasho dheer iyo suu gob ugu eekaado galad beenah iyo isagoo waliba afka taagaya galad beenah iyo waa inuu goola tiriyay hankan guray khaliifo hadaan ku galgaal bixiyo marka abu khaliif baa lahaaday hankan guray khaliifo hadaan ku galgaal bixiyo gaari waay waxaan hoos u dhigay garashadeena iyo guud ahaanba Soomaalidii guula ka dhaliyay geel aan la dhacay kiilaha waa gabaan marane mar hadduu afgaalada yaqaan erayo googoosa ama uu iskoo faadhiyo faanis garan waayo reeraha markuu kala guru uunka gala geeyo ninkii garasho liitiya magaan geesi lagu sheegi ninkii garasho liitay iyo magaan aaba macaane geesi lagu sheegi waad faham waaya gu kastaba ha joogay ninkii la isla garan waayo kaas waa kii laga tashan jiray markaa kii fariidka ka waran gu kastaba ha joogay ninkii la isla garan waayo gardarrada ninkii diiday ee gooni uga leexda ninkii war waxaas anaga nama qabtaan gardarrada ninkii diida ee gooni uga leexda gobonimo ninkii lagu tuhmay gaabis noqon waaya kii haba iska aamusay si xun u socdo wax la leeyahay si qaranka wax yeelaysa aad u socoto waxaad u taltalaabsatay ya si dawladnimada wax yeelaysa gobonimo ninkii lagu tuhmay gaabis noqon waaya mid la gado mid loo gowriciyo jeel mid lagu geejo gamgamaha xamaaradu wadaa loo gudboon yahay mid la gado mid loo gowraco iyo jeel mid lagu geejo gamgamaha xamaaradu wadaa loo gudboon yahay ee guud ahaan dadkeenii hadii la isu wada geeyo nin kastoo xiniyuhu gubaan maanta waa garac nin kastoo xiniyuhu gubaan nin kasto oo wax diida waa garac warka wada arag waay ninkasto garab male macna way ninkasto xiniyuhu gubaan maanta waa garac garab iyo walaaliyo ma helo ruuxu soo galay aniguna waxaan goobayay gamaa ii diiday xaqiiqadu ninkii ay gubtaa aamus garan waayo duruufahan is wada gaaray baa gooniyay helay gobonimo abwaan doonay iyo guurti baan ahay inta golahan joogtay intuu gaadho hadalkaygu inta golahan joogta iyo intuu gaadho hadalkaygu inta ila gadaa baan fariin guud u dirayaa anigu oday ciraal la hadli maayo
anigu oday cirro leh la hadli maayo inta golahan joogtiye intuu gaadho hadalkaygu intay la gadaa baan fariin guud u dirayaayo guubaabadeeduna cid bay gaar u sii tahay guubaabadeeduna waxay gaar u sii tahay qofkii marka la qanjiiriyo odhan kara guubaabadeeduna cid bay gaar u sii tahay gayigoo xoroobiya haddaad guulahaninayso ama aad filkaa garab degiyo himilo goobayso geedigan waxaa loo wadaa guri abaareed waxba ha farfarxin oo ha muxuboone ninkii raganimo ku jirta isla wax hagaajiyo geedigan waxaa loo wadaa guri abaareede inkastoo midnimadii la galay layga gaagixiyey gaf wixii naloo geystay iyo nabaradii gaaxday garcadaawaye inaan ka dhigin siina raad gurine gurmadkii midnimadaynu nahay gabi ahaanteena 60kii waxaan goobayay iyo gooshi may dhimane kala guur waxa igala wacan wada shirkaankooda gurmadkii midnimadaynu nahay gabi ahaanteena qaanuunkeenuna waa kan 60kii waxaan goobayay iyo gooshu may dhimane kala guur waxa igala wacan wada shirkaankooda kaasi wuxuu ahaa markaa gabaygii gurmadkii midnimada waxaan dareemayaa inaan ku dheera waxaan uga socdaa markaa gabaygaas halkaasaynu ka nimi halkaa imanka aan in ka mida isku dayay inaan sawiro ayaynu ka nimi halkaynu u soconnaana waa halkaa aan tilmaamayo waddada markaa intaa u dhaxaysaa baynu rabnaa inaynu marno in markaa faraha maxaan ku idhaha habluuna xidhna soo marsano dibnaa la soo casaysay inamaduna ay meelahan sawirra ku galgalaan oo yidhaahdaan haa isbeddel maaha halkii annagu aanu joognay baa sidaa u eg waxaa la rabaa marka fariintaydu ay ku gabagabaysan tahay haddaynu rabna inaynu wax beddelno halkaynu u soconnana waa garanaysaanoo nin maanta garashalaani ay ka haysaa ma jirto halkaynu halka tallaabo ka soo qaadnayna waa garanaysaanoo intay jirto waa ogtahay halkaynu ka nimi iyo halkaynu ku soconno waxaa dhow halkaynu ka nimi waayo hal tallaabo quraynu soo qaadno marka waxay ila tahay hala diyaargaroobo nin walba sidaa doonto u diyaargaroobo nin anagu saa u diyaargaroobo odhan maayo laakiin hala diyaargaroobo haddii la diyaargaroobi waayo wixii lagu furay haddaan laga furin faraqay ku sidataa bay soomaalida hore odhan jireen waxay odhan jireen gabadha marka la soo furo waa kaftaya waxay odhan jireen gabadha marka nin guursado uu soo furo mushkiladii lagu soo furay haddii aanay iska bedelin berrina waa lagu furi karaa berrina maxay ka kale guursada muxuu samayn karaa isla wixii bay wadataayo maxaa dhici kara inuu ku furo waan ka wadaa soomaalida wixii lagu furay haddaan laga furin faraqay ku sidaata wixii aabba macaana shalay keenay haddaan maanta la bedelin aabbayaal kalaa soo socda salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Audio Jungle. Audio Jungle.